بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan dhalinyarada danaysa barnaamijkan ICT-ga sida aad ogtihiinba barnaamijkan dhawaan baan bilaabay waxaana igu dhaliyay waxaan arkay dhalinyaro badan oo u baahan inay sii guda galaan programmadan ICT-ga iyo adduunkooda u sii guuraya aalado casri ah sida laaligeed waxaan rabaa dadkayga mujtamacayga Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inaan la wadaago intii aniga karaankayga aqoonteyda ah sida laaligeed casharadeenii imtixaanaha ahaa waxay noo marayeen computer setting-ka waxaan maanta ka qaadanaynaa time and language macnaheedu waxa waaye time-ka saacadda waqtiga uu computer-ku sheegayo iyo date-ka waqtiga uu sheegayo for example Tuesday August 12 2021 hadduu computer-ku marka ka khaldan yahay date-kiisu wadadee u maraysaa inaad date-ka ku saxdid ugu horreyn waxaad tegaysaa halkan ay ku taalo set the date and time manual change waa ku dhufanaysaa waxa kuu soo baxday marka change date and time bisha halkan ka bedelaysaa maalinta halkan ka bedelaysaa sanadkana halkan ka bedelaysaa mid walbana fantaxdaas ku dhufanaysaa meeshii aad rabtay sanadkii aad rabtay maalintii aad rabtay bishii aad rabtay time-ka waqtiga hadda lagu jiraa computer-ka iyo saacadda uu taagan yahay waa 12:24 oo AM ah halkan waan ka bedeli karaa time-ka sidoo kale minuteska waan bedeli karaa sidoo kale waxaan bedeli karaa PM iyo AM computer ahaan aniga computer-kaygu hadda wuu saxan yahay saasaan marka u daysanayaa laakiin adiga qofka uu ka khaldan yahay waxaa la rabaa inuu wadada u maro waxaan ku xijinaynaa waxa la yiraahdo regions macnaheedu waxa wax kale maaha waa stateska waa dowladaha hadda computer-ka kan waxa uu ah default United States regions haddaan rabo marka inaan ka bedelo fanaxdan ku dhufanayaa dalkii aan marka aan rabo ayaan geenayaa United Arabic oo kale something like that UK Kingdom iyo meeshii aan doonayo marka meeshaan joogo haddaan hoos u soo degno current format English United States computer-kan wuxuu hadda ku fahansan yahay language-ka English-ka khaas ahaan United States haddii aan doonayo markaa waan bedeli karaa kuwana dalalkii kale waxaan ku xijinaynaa marka language markaan tagno halkan dhammaan waa United States computer-kan waxa waaye display-giisa oo soo bixi doonaa wuxuu noqonayaa United States programmada iyo websites-ka uu soo furi doonaa kulli waa English United States original format-ka waa sidoo kale keyboard-ka sidoo kale speech-ka sidoo kale Windows display language macnaha Windows-ka luqadda aad doonaysid inuu ku muuqdo oo ku soo baxo still is English United States
option kala ku furan oo lagu ogol yahay option kaas oo ah inaad ku soo darsato luqadaada aad markaa aad danaynaysid. For example, add halkan waxay u dhigmataa pluska add the language. Plus baan ku dhuftay. waxa kan dhammaan waa dalalkii aan rabtay dalka doontaa ka dooranaysaa. Then markaas ayaad install garaynaysaa. Installing automatically install next sidaas install ku noqonaya. hadda active maaha, laakiin haddii aan mid ka mida ku dhufto active ku noqonaya. Next ayaa waxay ku active noqonaysaa. Next tan waxaa leedahay say next ilaa uu finish ka yiraahdo. markaas waxaad ku dhamaystirmaya language-ka aad u baahnayd. dhalinyaro soo dhawaada. Thank you very much. waxaan barnaamijkan ugu talagalay in si tartiiba loo fahmo, casharo kooban oo la fahmi karo qofka maskaxdiisa ku degi karto. sidoo kale weli waxaan ku jirnaa setting-kii ma dhowa fari kama qodna. casharada Windows-kina fari kama qodna. programsyo tiro badan oo aan qaadan doonaa way inoo dhiman yihiin. aad baa mahadsantihiin. Thank you very much. dhammaan inta daawata programkan iyo intaan daawanba. Thank you very much.